qisada maanta waxaa weeyaan gabar saalixada iyo ninkeedii marka subax kasta salaada subax u kicin jirtay. Salaad subax kasta waxay dhihi jirtay u kac salaada markaasuu maxay ahayd safka hore ku tukan jiray. Maalintii dambe waxaa dhacday ninkii inuu hurdadii ku daahay ee gabadhii kicin weysay jamaacadii labaad ku tukada markaa imaamkii wuxuu ku yiri hebel xaaskiisa miyaa tahay markaasuu yiri see ku ogaatay inaa heblaaya xaaskii odageeda ma tahay ninkeeda ma tahay markaasuu yaa kuu sheegay yiri gabadhaas aan qabo magaceeda ku baray markaasa wuxuu yiri xalay riyo waxaan ku arku yiri anaga dhanoo jannada galnay maxay ahayd hal gabarna inala socoto gabadhan yaa way markaan dhahayna waa ninkaas hebel ah xaaskiisa oo markasta salaada u kicin jirtay idan salaada waa maxay ahayd waa rukniga maxay ahayd labaad ee shariicada oo shahaadateynka ku xiga oo qofka muslimka hadduu xifdiyo adduunya aqrab uu liibaanayo ilaahayna uu nagu adoonsado inaan xifdino oo maxay ahayd ilmaheena ku baraarujino inay masaajidka iyo jamaacada iyo safka hore inay ku tukadaan oo salaada ay ku dadaalaan xaafidu cala salawaati wa salaati alwusta ilaaliya salaada gaar ahaan salaada casarka ah oo salaatu alwusta culimadu ku tilmaameen marka carruurtana la baro qoyskana markaa subaxi salaada u kaco oo hurdooda aan lagu daahin oo salaada subax aan waqti dambe la tukanin ay dadka la kowsadaan salaada ilmahana la baro in aabayaasha safka hore salaada u kaxeeyaan marka gabadhaas fiil wanaagsan saalixada sidee ugu guuleysatay inay gurigeeda ka dhigto guri maxay ahayd lagu cibaadeysto ilaahay looga cabsado ilaahayna ugu abaalguriyo inay maxay ahayd janno gasho biidna kariim aan ku dadaalno awlaadeena iyo gurigeena inuu noqdo dad guri salaada laga ilaaliyo